wafdiga dowladda Qatar oo qorshe qarsoon ka wada Soomaaliya iyo xogta shakhsiga la wado. Soomaaliya waxaa soo gaaray wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayo wakiil sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Qatar. Dr. Mutlaq Al-Qahdani waa khabiir sare oo ku takhasusay xallinta khilaafaadka dhexdhexaadinta iyo la dagaalanka argagixisada, waxa uuna garwadeen ka ahaa wadahadaladii u dhaxeeyay Mareykanka iyo ururka Taliban iyo waliba dowladda Afghanistan. Safarka mas'uulkan ayaa ku soo aadaya xilli Soomaaliya ay wajahayso qalalaas siyaasadeed iyo amni darro ka dhashay khilaafka doorashada. Ilo xog ogaal ah ayaa xaqiijinaya in safarka mas'uulkan uu daaran yahay laba ujeedo oo mid hore ay tahay in dowladda Qatar ay muujiso inay dhexdhexaad ka tahay siyaasadda Soomaaliya iyadoo muddooyinkan dambe lagu eedeynayay inay taageero indha la'aan ah siiso madaxda waqtigoodu dhamaaday ee Soomaaliya. Ujeedka labaad ayaa la sheegay inuu yahay ujeedka ugu muhiimsan isla markaana gadaal ka riixayaan sirdoon caalami ah. xog hoose ayaa muujinaysa ujeedka ugu weyn ee mas'uulkan inuu yahay in wadahadal lala furo kooxda Al-Shabaab. Ilo muhiim ah oo dhanka sirdoonka ayaana xogtan bixiyay. CIA-da Mareykanka qaybteeda Geeska Afrika ayaa la sheegay in ay gadaal ka riixayso safarka mas'uulkan iyo qorshaha socda. U qaabilsanaha Soomaaliya ee CIA-da Cornel Cabdullaahi Dheere kana tirsan saraakiisha sare ee NISA ayaa la sheegay in casuumaadda wafdigan lahaa isagoona gacanta ku haya howlaha wafdigan. xogtu waxa ay sheegaysaa in sargaalkan toddobaad ka hor la wareegay goobihii ay degi lahaayeen wafdigan oo shalay soo gaaray magaalada Muqdisho. Wafdiga Qatar ka socda oo wararku tilmaamayaan in laba goobood la kala dijay ayaa qayb la sheegay in ay kulamo siyaasadeed la qaadanayaan madaxda siyaasadda isla markaana saxaafadda loo fasaxay in ay soo bandhigaan shaqo maalmeedkooda. Qaybta kale ee wafdiga ayaa la sheegay in ay kulamo hoose la yeelanayaan wakiilo ka socda kooxda Al-Shabaab, kulamadaasi oo ka dhici doona gudaha magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda. Shaqada wafdigan dambe ayaa gabi ahaanba lala socon ajende rasmi ah ay kala hadlayaan Al-Shabaab marka laga reebo in wada hadal ay la galayaan kooxdaasi. Ilo amni ah ayaa noo sheegay in ilaa iyo hadda la fahamsan yahay in uu dhacay laba kulan oo xasaasi ah iyadoo ay adag tahay in la ogaado saraakiisha shirka ka qayb galaysay iyo heerkooda. Taliyaha dabagalka NISA ahna u qaabilsanaha CIA-da Mareykanka Cabdullaahi Dheere ayaa la sheegay in uu si weyn ugu dhex muuqanayo kulamadan qarsoon, waxaana sargaalkan hore loogu eedeyn jiray inuu gacan saar hoose la leeyahay kooxda Al-Shabaab. Xubno ku dhow wafdigan ayaa laga soo xigtay in safarkooda uu qaadan doono muddo 2 maalmood ah, waxaana la filayaa saacadaha soo socda wafdigan garabkiisa siyaasadda in uu kulamo la qaato madaxda mucaaradka Soomaaliya iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Howlaha sirdoon ee Muqdisho ka socda ayaa waqtiga qeexi doona natiijada ka dhalata xilli aysan ku baraarugsanayn inta badan siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed. wafdiga dowladda Qatar oo qorshe qarsoon ka wada Soomaaliya iyo xogta shakhsiga la wado. Soomaaliya waxaa soo gaaray wafdi heer sare ah oo uu hogaaminayo wakiil sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Qatar.